muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago madaxweyne Trump oo shalay bartiisa True Social-ka ku sheergareeyay muuqaal iyo qoraal nin cunsuri ah oo taageerayaashiisa uu ku aflagaadeynayay ilmo yaryar oo Soomaali ah oo ka qalin jebinayay iskuulada carruurta inta aysan kalaaska koowaad gaarin lagu sii tababaro ama wax lagu baro isla markaana carruurtaasi ay xijaabnaayeen amaba iyagoo gabdho u badnaa intooda badan madaxoodana uu u dadnaa xijaabna ay wateen. Haddaba madaxweyne Trump ayaa sheergareeyay arrintaasi oo dad fara badan aad uga careysiisay, waan idinla wadaagayaa. dhinaca kalena madaxweyne Trump waxa uu gaaray magaalada Ankara ee wadanka Turkiga, halkaasi oo maalinta beri ah uu ka furmayo shirka isbahaysiga NATO. madaxweyne Trump waxaa soo dhaweeyay madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan markii ay wada kulmeen. kadibna Trump waxa uu yiri isbahaysiga NATO markii aan dhahayay dagaalka Iran nagu taageera waan tijaabinaynay, waxa uuna magacaabay qaar ka mid ah wadamadii diiday inay Mareykanka dagaalka ay kala qayb galaan. madaxweyne Trump waxaan ogeyn muddooyinkii ugu dambeeyay dadka Soomaalida ah inuu si aad ah u weerarayay iyo weliba dalkeena Soomaaliya oo uu dhahayay dadkan maskaxdoodu waa ay hooseysaa isla markaana waa musuqmaasuq oo kaliya ay yaqaanaan sida wax loo xado, wadankooda nabadi kama jirto, qas iyo qalalaaso oo kaliya ayaa laga yaqaan. arrimahaas oo idil waan ku ogeyn, laakiin shalay waxaa si aad ah loola yaabay markii bartiisa True Social-ka uu ku soo sheergareeyay qoraal iyo weliba muuqaal isla socda oo mid ka mid ah taageerayaashiisa uu soo geliyay. waa iskuul public ah oo dowladda ay leedahay oo ku yaala magaalada St. Paul ee caasimadda gobolka Minnesota. ardaydan yaryarka ah oo idiin muuqato oo Soomaalida ayaa waxa ay ka qalin jebinayeen iskuulada la yiraahdo kindergarten. carruurta ayaa waxaa loogu diyaariyaa ka hor inta aysan galaaska koowaad bilaabin. marka waxaad tiraahdaa waa carruur da'doodu 4, 5 ilaa 6 u dhaxayso ayaa marka way qalin jebinayeen oo galaaska koowaad ayay u gudbayaan. waxaa loo xirayay qalin jebintoodii ayay ahayd. halkaasi ayay marka waxay ku soo libisteen dhar calanka Soomaaliya u eg, gabdhuhuna xijaab koofi ayay wateen. marka waa ay heesayeen. waa arday ilmo yar oo aad u faraxsan oo sabiyaal ah ayaa marka ninkaasi uu soo qiray. marka ninku wuxuu yiri iskuulkan public ah oo ku yaala magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota waxaad arkaysaan uu yiri gabar kasta xijaab ayay wadataa, kindergarten ayayna ka qalin jebinayaan. marka Trump markuu qoraalkii arkay bartiisa True Social-ka ayuu ku soo sheergareeyay. arrintaasi marka waxaa loo arkay in carruurtaasi yaryarka ah oo sabiyaasha ah oo ka qalin jebinayay kindergarten-ka isla markaana loo diyaarinayay marka iskuuladu ay furmaan. hadda xilliyadii iskuulku ay xirmayeen walow gobolada Mareykanka ay kala dambeeyaan oo qaarkoodna ayba u xirmeen bishii hore, kuwana hadda ay u xirmayaan sida Minnesota oo kale. marka uu sanadka dambe iskuulka furmayo bisha 9aadna carruurtaasi galaaska koowaad ay fadhiisanayaan in ayba laga soo horjeedo carruurtaasi xijaaban oo diinta islaamka ay ka muuqato. marka madaxweynihii dhan Mareykanka xitaa uu ka xishoon waayay ilmihii yaryarka oo sabiyaasha ahaa oo iskuulkaasi ka qalin jebinayay isla markaana carruur loo diyaarinayo in galaaska koowaad ay fariistaan sanadka dambe marka iskuuladu ay dib u furmaan. marka waxa uu doonayay in carruurtaasi timaha ay u qaawanaadaan, surwaal ay wataan, funaanad yar ay wataan. wadankan waxaa ka jirta diinta, qof kastaba diintiisa waa uu madax bannaan yahay, sidii uu rabo ayuuna u caabudi karaa. carruurta iskuulada xijaabay ku tagi karaan, madaxooda waa ay dadan karaan, wax lagu qasbaya ma jirto. ilma lagu qasbi karo ma jirto inay madaxooda qaawiyaan ama surwaal soo xirtaan ama funaanad ay soo xirtaan. marka arrintaasi waxay noqotay arrin la yaab leh oo ah in madaxweynihii Mareykanka ilmo yaryar oo sabiyaal ah oo diintooda islaamka haysto in uu nin cunsuri ah oo taageerayaashiisa qoraal uu soo qoray uu boggiisa True Social-ka uu ku soo sheergareeyo. dad fara badan oo cadaan ah waxaan arkay dhahaya arrintan macquul maahan, muxuu madaxweynuhu sidan ugu dhaqmayaa. laakiin Trump waxyaabahan oo kale iyo waxyaabo ka daranba waa ay ka suurabaan. waana arki jirnay in xitaa qof dhintay uu caayo uu yiraahdo qofkaas saas ayuu ahaa. maxaad ka filaysaa marka dad nool in uu caayo ama aflagaadeeyo? arrintaasi ma ahan mid ku cusub indhaha iyo weliba dhagaha dadka Mareykanka iyo kuwa caalamkaba. madaxweyne Trump arrintaasi waa lagu yaqiina, laakiin waxa ay noqotay arrin la yaab leh oo dadku ay si weyn ula yaabaan. ilmo yaryar oo xafladooda qalin jebinta jooga oo aad u faraxsan oo si qurux badan u libisan, diintooda islaamka ka muuqato, in la yiraahdo fiiriya gabdhaha dhammaantood
xijaab ayay wataan waxayna ka qalin jebinayaan kindergarten marka meeshaas waxaa ka muuqanayso arrintii ahayd ma doonayaan inay nagu dhex milmaan ma doonayaan inay dhaqankeena qaataan waxyaabihii uu xildhibaanka laga soo doorto Minnesota 2 toddobaad ka hor uu sheegayay uu dhahaya dadka aan doonayn inay nagu milmaan wadankoodii ay ka yimaadeen asal ahaan dib ha ugu laabtaan arrintii macnaha in ilaa iyo madaxweynaha ay gaarsiisan tahay oo la isku raacsan yahay ayaa goobta ka muuqanaysa marka la eego sida madaxweynaha uu qoraalkaasi ninkaasi cunsuriga ah oo taageerayaashiisa uu soo sheergareeyay madaxweynuhuna uu mar kale uu arrintaasi sii sheergareeyo oo bartiisa isaga qaas ku ah ee Truth Socialka uu soo geliyo sida halkan aad ka arkaysaan arrintaasi haddii halkaasi aan kaga gudbo madaxweyne Trump waxaan ognahay in uu u safray wadanka Turkiga halkaasi oo maalinta beri ah uu ka furmayo shirka isbahaysiga NATO marka Trump waxaa soo dhaweeyay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan isla markaana ciidamo fara badan oo Bambayda ayaa ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa markii ay wada kulmayeen marka madaxweyne Trump iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Trump waxaa la weydiiyay cambaareyntii wadamada NATO uu cambaareynayay waa kii dhahaya ciidamadeena xitaa qaar ka mid ah wadamada Yurub jooga waan ka soo qaadaynaa maxaa yeelay markii aan u baahnayn ma aysan na garab istaagin waxa uu doonayay in wadamadaasi ay dagaalka Iiraan ay ku taageeraan Trump marka waxa uu yiri arrintaasi waan ku tijaabinaynay marka waxaana diido yiri wadamo ay kamid yihiin Talyaaniga Jarmalka iyo Faransiiska ayuu soo qaatay wadamada diiday inay dagaalkaasi kala qayb qaataan qaar kamid ah wadamadaasi xitaa eeraboradooda diyaaradaha Mareykanka inay isticmaalaan ayuu u diiday marka wuxuu yiri maxaan balaayiin dollar aan ugu qasaarinaynaa dad aan doonayn marka aan u baahanahay inayna garab istaagaan iyagana markay ay u baahnaayeen waan garab istaagnay marka Trump wali arrintii ayuu go'aanayaa oo waxa uu leeyahay NATO maxaan lacag fara badan ugu bixinaynaa maxay ciidamadeenu u joogaan wadamada Yurub oo saldhigyo waaweyn ay ugu leeyihiin maadaama ayna diideen inay gadna garab istaagaan xilligii aan u baahnayn inay garab istaagaan maxaa yeelay wadamada isbahaysiga NATO waxay yiraahdeen Trump dagaalkan adiga iyo Israa'iil ayaa bilaabay adinka ayuu idinku kooban yahay marka dagaalkan adinka ayaa bilaabay soo gabagabaya Trumpna markii dambe waa kii ku qasbanaaday in xitaa Israa'iil oo dagaalka la gashay oo iyadoo aan ogeyn uu heshiis isfaham la galo bishii hore wadanka Iiraan oo la kala saxiixday walow heshiiskaasi dhowr jeer hadda lagu xadgudbay wada hadaladuna ay wali sii socdaan bal waa kan madaxweyne Trump oo la fadhiya madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan isla markaana dhahaya isbahaysiga NATO waan tijaabinayay markii aan dhahayay ciidamo nasiya oo dagaalka nala gala laakiin tijaabo ma aysan ka ahayn oo Trump daacad ayay ka ahayd oo Iiraan sidii uu u maleynayay ma aysan ku noqon waa ay ka xoog badnaatay markaas kadib markii NATO ay diideen inay dagaalka la galaan waxa uu doortay in uu heshiis la galo Iiraan taasoo waliba heshiiskan faa'iido weyn ay Iiraan ugu jirto marka dhinacyo fara badan laga eego lacagaha loo fasaxayo marinkii Hormuz oo ay maamulayaan cunaqabataynadii oo laga qaadayo shidaalkoodii oo ay dhoofsan karaan gantaaladoodii oo loo daayay walow nuclearka hadda wada hadal oo kaliya uu ka socdo bal Trump oo markii uu la fadhiyay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan arrintaasi ka hadlayayna waxa uu yiri In a way, I was testing people. I was testing to see whether or not they'd be there because I've long said that we help them, but I'm not sure that they'd be there for us. And Italy turned us down, and Germany turned us down, and France turned us down. And it's okay. But, you know, why are we spending hundreds of billions of dollars and they're not there for us? We've always been there for them. أدي هذا ومحسنتين أصحابتين تنمر كلا كل مدونه وصاحبكن علم ورويدين